YouTube معناها أسي maaha arin asi looga hadlayo arinta maxaa waaye arinta kulli shalay aan arkay soo kala cadeynta markaasi arkay ama si yaabi arinta waxa waaye xaaska asiga qabo xaaska asiga noogu faanay xaaska asiga dhihi jiri waa ay cadeynay dayaxdan nuush amla ay dhigay war horta ku madalin xaaska dayaxdan nuush waa gabar sharaf leh waa gabar dumaashada aan jecel lahay laakiin meeshan hadii waxyaabo fool xun jiro ما في عنا خوف بني آدم حتى إن لقوا مثله هرت أرد سأجي إن قبل ولا بحي لكن سؤال سويدين تمضنا واحد تاي أحمد بسكت فيديو كان إن أضوبه محاسبة إن مال من شيخ أجوجو وأنا مهر official أهين بدنا أي قصة خيب قليل إن فيديو كان أضوبه محكو كل فكرة سؤال جوابت إذا واحد تاي وحكو كل فكرة أحمد بسكت وحصوص عضينه أوجا feedback imaan doona inuu ku taagnayd waayo gabadha soo hadalka ku mahmada doqonta hadalka ninka raga hadalka waa loo saraa doqonta waa loo saafa doqon baa tahay doqontana in loo saafo oo si fiican loogu faahfaahiyo loo kala dhigdhigo haddaad qofka ku tilmaantid nin Faransiis ah oo gaal isla markaa waxa sawirmaysa nimaan istijaysan nin buuriyo ku taal nin magaranaysa gaal lalaya khansiirka cuna uray oo baqtiyay waxaas dadka u soo baxaya fool arwah been badana oo indhaadaka wariyaa halka markaan soo fariisanayno kalsooni aan ugu fadhinayo dhaqanka anaga oo dhowrana wariyaa tug baat ana xishoon oo rabbi iyo ragtoona baat diinta islaamka ku qaraftay awal ba wiil iyo gabar inay ay tamaan qalad bay ahayd dagaalka Naciima iyo Ilkaas waa idin sheegay wax isdagaalsan ma ah waa been yani asagana duu ayada ka aamuso dhageysanaysa ma jirto ayadana day asaga ka leexato wax lasma meeshan dagaal un baa la dhageysta waa aragteen marka dabkaas la isku shitaa hada daayir Ilkaas iyo daayir hada ka dhaxta fanta waa ku dilaa iyo waa ku yeelaa iyo waa ku iimaanay afka loo soo ko hayo soo laabo aniga bes waaye gabar muslimadan ahay nin islaam ahayn marabo oo ku islaamaya marka soo laabatid wali baan kugu mihirsanaya mihir islaama oo shariicada islaamka qabto Quand est-ce que tu vas devenir musulman pour moi parce que tu étais jamais musulman quand est-ce que tu vas devenir musulman waxa ku iri goorma muslim ii noqon doonta waliga muslim ma ahayn isaga jawaabtiisa dhageysta wuxuu isagu oran doono goormaad muslim maxamed buskud hal guri kuma wada nooleen waxay is arki jireen oo kaliya maalinka sabtiga iyo axadda habeen wiilashii xumxumaayo dadka caayi jiray oo naagahoodii baraha bulshada keenay hadda shalay naag cayday maantay see naagtaadu u nabadgelaysaa waa adiga diyaanada soo mariyay oo bootarka soo mariyay oo baraha bulshada keenay maanta waxaad is leedahay bulshada wax u sharax walaalkayga laakiin marwadaada ninkii gabadhu markay la hadlaysay haweeney eedadeeda fiirso maqal ilaah baan ku dhaarshay wax la sii og yahay miyaa sidaan ah oo la soo Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa doqonta hadalka waa loo saafaa saasa loogu kala jeexjeexaa war saasaan ka waday dal wadaadan ahay fir culuma ka soo jeeda aniga idin hadla xaafid quraan ahay waxaas waan taqaaniin waxaas iyo wax lamid ah inay iga suurtoobeen gabar la qabo marwa inaan si xaraana ku soo xariisto okay hadalka Axmed Buskut marka in badan fiiriso waxa kaaga cad meesha inay kalsooni yar ku jirto laakiin uu dareemayo culeys saaran oo culeyska saarana waxay tahay dhanka gabadha familigeeda oo aanan happy ku ahayn qayb haddii labadaas uu sameynin hal mid jiri karto maxaa waaye sixir waa iska cadahay sixir inuu adeegsaday ninkan wiilkaas magaciisa afkayga xitaa ma qabanayo laakiin aniga waxa uu baxsanaa Candho Buskut tana arag dadka dhamaan isku mid ma ahan waa kalamaan sheekadan sixir miya ma fahmin sheekada oo kala xajma loo kolka horeba guur waa milgiya maarsi kala waa
ragga qaarse uma meeldayo waa iska meershaanse waxaan ka midhaa halkan lagama suugayna tolka lagama maarmay haddaan tashigooda iyo loo dhiibin ninka keligii maalootiya meel xuma u halis tanaan degay warqadda halka ka muuqata waa caddayn tilmaamaysa qaadiga iyo maayarka magaalada Jabuuti inuu marag iyo markhaati ka ahaa gabadha guurkeeda iyo ninka meesha lagu guursaday maaha Eritrea waa dal muslim iyo magaalo Soomaaliyeed waana Jabuuti tan kale halkaa kaaga muuqataana